بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخيارتا أصحابتا كل وحان إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور دوادا برنامج كينا عصب أو حيسها بدن أو أغطى لقلنا شهر رمضان بإذن الله تعالى أولده برشادة أسماء الله الحسنى بودكاست. أن أنت أجد قالين إن شاء الله يعني فائدوين كأكهليسيد مركا برتد أسماء الله الحسنى وحاربا حوغايا إنا كتابتو سببتا أدورني بشهر رمضان يعني سبحان الله bisha ramadaan waa bil oo quluubtoo dhan waxaa leenahay hal hami ah kulligeen iskaa wada mid nahnay oo ah inaan jecelnahay inaa ilaahay casa wajal inaan xarigiisa haysano inaa ilaahay casa wajal u dhowaano yani waxaan leeyahay ummatu maxamed sallallahu calayhi wasallam خير لقما واي وخير بدن تهي waxaa laga yaabaa kulligeen sanadkaas oo dhan ibn aadam baa nahnay oo caasi oo dambi badan baa dhahnay marka sanadkaas oo dhan waxaa laga yaabaa khaladaadkeena iyo dunuubteeda inay badan tahay laakiin kulli naf kastoo naga mid ah markuu bishaas oo ramadaanka markay imaato waxaa u maleysaa kulligeen inaa gacmaha u dhiganayno yani weyna tahayna inaa kulligeen gacmaha raxmadda ilaahay naxariista ilaahay inay wax naga soo gaarto raxmadda ilaahay inay wax naga soo gaarto wanaaga ilaahay casa wajal inuu wax naga siiya kulligeen jecelnahay ilaahay casa wajal asagana taasuu jecelya asagaaba qur-aankiisa casa wajal kugu sheegaya markuu aayadda dhahayo qul yaa cibaadi aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah yani subxaan allah kuma xirna dambiyaashaa samaysid macaasidaa samaysay waxyaalaha khaladaadka badan kaa dhacay marna ha qalbigaada ha ka niyad jabin marna niyad jabiyo kugu dhicin marna ha ka quusan naxariista ilaahay casa wajal lianu ilaahay casa wajal ina allaha yakfiru dunuuba jamiica ilaahay casa wajal dunuubtoo dhan wuu ghafiraa wuu dambi dhaafaa dunuubtoo dhan inahu huwa alghafuuru raxiim asagaa ghafuur raxiim ah an barnaamijkana asmaa'ullah alxusnaa wixii يعني سبحان الله نجا عاونيسا لبدان هذا مجا إله عز وجل كمت الغفور الرحيم إنا سيبر إنه محل جودا غفور محل جودا رحيم يو مجا يدك لو بدن إله عز وجل سيبر دونا مرك إن شاء الله وحن كبر يا إلهي عمل خالص لوجهه إنه نقضه أو عمل صالح ونقضه إنه نقطنا بلاوجا سفر عصب كل جن أنت لقي سنة برنامج كان إسلام ذا قال إنه سفر كاس أو كسابسن sidee ilaahay casa wajal jaceylkiisa qalbigeena ugu sii weynaysiinaa sidee ilaahay casa wajal si fiican usii baranaa sidaan u caabudno allah casa wajal biixsaanin watama'niina ilaa ilaahay casa wajal si wanaagsan oo sida ugu qurux badan ilaahay inaan ku caabudno baa ka baryanaa insha allah marka haddana waxaa sii galaynaa faa'iidooyinka ee leedahay barashada asmaa'ullah alxusnaa magacyada ilaahay casa wajal quruxda badan marka bismillaah wacalaa barakatillaah faa'iidada koowaad ee barashada asmaa'ullah alxusnaa maxay tahay barashada asmaa'ullah alxusnaa waxay kaa caawinaysaa number 1 inaa qalbigaada nadiifisid qalbigaada inuu qalbi saliim ah oo nadiif ah inuu noqdo siduu nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka ku sheegay alaa wa ina fi ljasadi mudqa yani xubin ka mid ah jirkaadaad jirta xubintaas haddii fiicnaato jirkaadoo dhan wuu fiicnaanayaa haddii xubintaasna ay halaabdo oo faasid noqotona jirkaadoo dhan wuu halaabayaa marka xubintaasna maxaa waaye waa qalbiga siduu yani diinteena nafaraysana yani shart salaaxil acmaalka waa salaaxil quluub haddaa rabtid acmaashaada in lagaa aqbalo oo wanaagsanaato horta qalbigaada inama alacmaalu binniyaat niyadaadii qalbigaada waa inuu wanaagsanaado ilaahayna siduu casa wajal oo sheegay xadiidka lagu sheegay allahu laa yanduru ilaa suwarikum wa amwaalikum ilaahay ma fiirinayo sida u ogtihiin ma gaabantihiin ma dheertihiin ma caddihiin ma madowdihiin lacagtiinana akauntadiina waxa ku jira ma fiirinayo walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum horta quluubtiinu fiirinaya markaasna acmaashiinu fiirinaya marka taas maxay ku tusaysaa fiiri qalbigaada waxaa jirta qayb ka mid ah yani space baa jira qalbigaada spacekaasna waa eber waa empty
waa meel eber ah oo qalbigaada ka mid ah. xubin yani xubinta qalbiga meel ka mid ah waa eber. wax buuxin karana qaybtaas oo qalbigaada ka mid ah ma jirto. laa jecel oo lamaano aa buuxin kara, laa jeceelka waalidkaa buuxin kara, laa jeceelka caruurta iyo ubadka inaad dhashid ma buuxin karaan, laa jeceelka mansibka ama jaaha ama kursiga ama lacagta ama maxaa la yidhaahdaa ama caanimada, wax buuxin kara ma jirto. yani xitaa adoo waxyaalahaas oo dhan xitaa si xalaal adoo ku wada haysta, laakiin still wax baa kaa maqan. qalbigaada qayb weyn baa waxay tahay eber oo empty tahay. marka su-aasha mudan inaan nafta weydiino maxay tahay, maxaa buuxin kara qalbigaada meeshaas eberka ah? maxaa buuxin kara? farxadaada maxaa dhammaystiri kara? farxadaada waa naaqis. farxadaada marka maxaa dhammaystiri kara? jawaabtana waa barashada asmaaullaahi alxusnaa. barashada asmaaullaahi alxusnaa waxay kaa caawinaysaa inuu qalbigaada kusii ziyaado jaceylka allah casa wajal. markuu jaceylka allah casa wajal qalbigaada kusii ziyaadana, farxadaadaa sii ziyaadanaysa, aada ziyaadaysa, farxadaadaa sii kordhamaysa, yani kor usii baxaysa. markuu jaceylka allah casa wajal oo qalbigaada kusii ziyaadana, farxadaadaa ziyaadaysa. weligeed jaceyl nooc kasta oo qalbigaada farxad u keenaya ma jirto ilaa jaceylka oo dhabta ah oo ilaahay casa wajal. siduu ilaahay qur-aanka ku sheegay, almaalu walbanuuna ziinatu lxayaati اddunyaa. yani lacagta, mansib inaa lahaatid, jaah inaa lahaatid, caruur inaa lahaatid, waa wax qurxoon, waa quruxda noloshii ka mid tahay, waxyaalaha qurxoon oo noloshii ka mid tahay. yani wax xun ma aha, wax fiican waay, wax fiican noloshaada waxyaalaha qurxin ay ka mid tahay. laakiin maxaa kasii fiican? waalbaaqiyaatu saalixaatu khayrun cinda rabbika thawaaban wa khayrun amala. laakiin waxyaalaha kasii fiican intaasba, yani lacagta iyo mansibka iyo jaahga iyo caruurta, waa inaa ilaahay casa wajal ah xustid dikrigiisa. maxaa dhacay? lianu allah casa wajal thawaabna wuu kaa siinayaa, yani amalkaadana, yani rajadaadana way weynaanaysa. because sometimes lacag waa dhici kartaa inaa haysatid, laakiin ma hubtid inaa nolol farxad inaa ku noolaan doontid. caruur badan inaad dhashid way dhici kartaa, laakiin ma hubtid inay caruurtaasoo dhan caruur oo baari oo wanaagsan oo kaa farxina inay noqon doonaan. laakiin albaaqiyaatu saalixaat, dikrullah, acmaasha saalixadda ah, waa wuxuu ilaahay kaa ballan qaaday. uu kaa ballan qaaday inuu nolol qurxoon oo ku siin doono. siduu ilaahay casa wajal qur-aankiisa ku dhahay, man camila saalixa min dakarin aw unthaa wahuwa mu'min falanuxyiyanahu xayaatan tayiba. markaa camal wanaagsan la imaatid, ilaahay ballan buu kaa qaada oo ah nolol qurux badan baa ku noolaan doontaa. walanajziyanahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun. subxaan allah, ilaahayna wuxuu ku siinaa nolol qurxoon adduunyadaana waa ku noolaanaysaa, nolol qurxoonna aakhira waa ku noolaanaysaa. marka naciima dunyaa iyo naciimka aakhira labadaba wuu ku siin doonaa. laakiin taas halkay ka imaanaysaa? markuu jaceylka allah casa wajal oo qalbigaada kusii ziyaado. waxaan dhahnay qalbigaada baa nadiif noqonaya, saliim noqonaya. markaasna waxaa kusii badanaysa, yani ilaahay wuxuu kuu barakeynaya noloshaada kuu barakeynaya nolol qurux badan, xayaatu tayibaad ku noolaanaysaa. marka barashada asmaaullahi alxusnaa waxay naga caawinaysaa arintaas. taasi waa tan koowaad. faa'iidada labaad, qurxinta acmaasha saalixada aada samaysid. kulligeen ilaahay waa jecelnahay, kulligeen waa aaminsannahay ilaahay inuuna khalqay, laakiin dadkoo dhan isku mid ma aha markii laga hadlaayo acmaasha iyo khushuucga iyo ikhlaaska iyo acmaashaas la imaanaya. tusaale waxaad ka soo qaadaa, masjid baa la joogaa, saf oo dheer baa dad ku tukanayaan. dadkaas
isku salaad bay tukanayaan oo isku actions bay bixinayaan, yani jirkooda isku actions bay sameynayaan. laakiin markii laga hadlo thawaabka ee salaadaas ay jamaacada ku tukadeen, waxaa laga yaabaa isku ajar inay qaadanin, liannu ajarkiisa qof kastaba salaadiisa waxay ku xirnaanaysaa intuu qalbigiisa xaadir ahaa oo khushuucdiisa joogtay ba ajarkiisana ilaahay casa wajal uu siin doonaa. marka waxaa laga yaabaa dad qaarkood inuu khushuucgooda 100% joogtay, marka ajarkooda 100%, qaar maskaxdooda meel bay ku maqneed 50, qaar 20, qaar 10, qaar 5. soo subxaanallah, siduu xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo dhahay yani ina arajula la yansarifu wamaa kutiba lahu ilaa cushru salaatihi tuscuhaa thumnuhaa subcuhaa sudusuhaa khumsuhaa rubcuhaa thuluthuhaa aw nisfuhaa. yani waxaa laga yaabaa qof kastaba oo ninkii salaada tukaday inuu ajarkeeda saas yani ama 100% ama 20% ama 50% inuu ka helo. marka barashada asmaa'ullah alxusna waxay kaa caawinaysaa qurxinta acmaashaada saalixadaada, yani improving the quality of your cibaada, qurxinta acmaashaada saalixada. liannu markaad ogaatid inuu ilaahay caza wajal alghaniy alrazaaq inuu yahay, waxaad jeclaanaysaa for example haddii marmar kugu adag tahay sadaqada inaad bixisid lacagtaas oo kaa kala dhimaysa, waxaad xasuusanaysaa xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam, maa naqasa maalun min sadaqa, marna lacagtaada ma yaraanayso, sadaqa ma yaraanaysa lacagtaada, bilcagsi waa sii badanaysaa. adduunyadana waa kuu ilaahay kuusii labalaabaya, aakhirana dee ajarkaadaa sii badanaya. markaa ogaatid inuu ilaahay raxiim yahay oo naxariis badan yahay, waxaad jeclaanaysaa inaa muslimka oo dhan iyo ibni aadamka oo dhan inaad naxariisatid, dadka waayeelka masaakiinta, waalidkaa daciifka ah oo maskiinka oo weyn inaa u naxariisatid, ilmaha yar inaa u naxariisatid, naxariista qalbigaada kusii ziyaadaysa. markaa ogaatid yani ilaahay inuu cafuw yahay, inuu ghafuur yahay, allahuma inaka cafuwun tuxibu lcafu, ilaahu adaa yani cafuwga ahoo waana jeceshahay inaad dadka cafisid, adigana qalbigaada ilaahay wuxuu kuu sahlayaa oo kuu fududaanaysaa qof kastoo ku dhibay, qof kastoo qalbigaada kaa jabiyey inaa cafisid, because cafiska waa wax aad iyo aad u culus, laakiin ajarkeedana aad buu u badan yahay. marka ilaahay casa wajal wuxuu kuu fududeynayaa dadka ku dhiba inaa cafisid. marka taas maxay ku tusaysaa faa'iidada labaad oo asmaa'ullah alxusna, barashada magacyada ilaahay, yani waxay kaa caawinaysaa qurxinta cibaadadaada iyo acmaalu saalixadaada, inaa moor khushuuc, moor ikhlaas inaa la imaatid insha allah. faa'iidada saddexaad ee barashada asmaa'ullah alxusna, magacyada ilaahay casa wajal. magacyada ilaahay casa wajal waxay kaa caawinaysaa inaad lahaatid coping mechanism, yani inaa ilaahay casa wajal wuxuu kaa caawinayaa inaad la tacaashid, inaad kuu fududaato marka arin adag ama dhib ah ku jirtid ama imtixaan aa maraysid, because adduunyadan way isbedel badan tahay, adduunyadan way imtixaan badan tahay, way dhib badan tahay, way murugo badan tahay. waxaa lagugu imtixaamayaa dhimashada qofaad jeceshahay, hooyada ama aabaha. waxaa lagugu imtixaanayaa adigoo jiratid, xanuun baa lagugu imtixaanayaa, ama caruurtaada inay xanuun ku dhaco ama ku dhashaan lagugu imtixaanayaa. qof wanaagsanaad tahay laakiin guurkaa kaa soo daahay, waa imtixaan. guurkii waa haysataa laakiin isfahmi badan baa jirin, waa imtixaan kale. guurkii waqtigiisii calafkii baa soo dhammaaday, guurkiyaa kaa halaabay, waa imtixaan kale. qaraabaa markasta u fiican tahay wanaajisid baa cadow kugu noqonaya, imtixaanaday ka mid tahay. xoolaha usoo shaqaynaysay wax badana usoo tacabtay kusoo daashay baa lagaa xadayaa ama lagaa qaadanaya, si dulmi ah lagaaga qaadanaya, waa imtixaan. marka imtixaanada adduunyadan kuma xirna iimaankaada, kuma xirna inaa xariga ilaahay inaa haysatid iyo in kale, yani caalim iyo caasib waa la imtixaanaya, kulligeen imtixaankaas waa wada maraynaa. siduu ilaahay caza wajal suuratul cankabuut uu ku sheegay, yani qof kastaba imtixaan wuu maraya, qof kastaba fitnad wuu marayaa. axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanaa wahum laa yuftanuun,
يعني waxay la tahay dadka inay ilaahay casa wajal bas waad ashhaadataa waad taqaanaa diintaada and then that's it, imtixaan ma maraysid oo noloshaadoo dhan easy noqonaysaa. maya, walaqad fatana aladiina min qablihim falayaclamana allahu aladiina sadaquu walayaclamana alkaadibiin. marka subxaan allah, imtixaankaasaa maraysid, ilaahay markasta wuu ku yaqaanaa inaa saalix aad tahay ama keyr saalix inaad tahay, laakiin imtixaankaas wuxuu soo saarayaa macdantaada runta asligaada gudahaada waxaa ku jira inaa ilaahay casa wajal inaa si wanaagsan oo saadiq ah inaa ula dhaqmaysid, mase qof oo maxaa layihahda iska fake ah oo markii dhib imaatana asagoo dhan kala daadanaya inaa noqon doontid. marka adduunkana waa imtixaan badan yahay, laakiin waxyaalaha oo naga caawinaya imtixaankaas oo adduunka inaa la tacaalno waxaa kamid ah barashada magacyada ilaahay casa wajal. yani magacyo waxaa jirta subxaan allah oo qalbiga yani daaweynayo oo wax kasta dhib kasta ku haya ilaahay casa wajal oo ku qaboobaysid, qalbigaada ku qaboobaysid, sida magaca ilaahay alraxiim, aljabaar, asabuur. subxaan allah waxay kamid yihiin magacyada oo wax kasta dhib kasta ku hayo oo ilaahay casa wajal oo ku abuuraya qalbigaada sabr badan, inaad يعني qalbigaada murugada ku jirta iyo diiqada ku jirta. magacyada ilaahay alwaasic baa kamid ah. alwaasic yani naftaada markii oo ciriiri aad dareentid, magaca ilaahay alwaasic markaa xasuusatid, ciriirigaasaa kaa kala tagaya. subxaan allah. marka faa'iidooyinka barashada asmaa'ullah alxusnaa wax lasoo koobi kara ma aha, lianu waa yani subxaan allah waa faa'iidooyin badan, waa barako iyo nafci badan baa ku jira barashada magacyada ilaahay casa wajal. culuumtana waxay kamid tahay cilmiyaasha ugu kheyr badan, ugu wanaagsan in la barto magacyada ilaahay casa wajal iyo tawxiidkiisa. marka insha allah waxaana ilaahay ka baryayaa inuu ka dhigo camal saalix ah oo mukhlis liwajhihi yahay, oo anakana insha allah tacaala I'm so excited, waa aad ba ugu faraxsanahay insha allah rixladaas ama safarkaas isla bilaabi doono, aan baran doono magacyo kala duwan oo asmaa'ullah alxusnaa bishaan ramadaanka oo mubaaraka ah, oo taasna naga caawini doonto inaa qalbigeena yani barashada magacyada ilaahay casa wajal oo alxusnaa markii lagu dhaho yani waa quruxda badan tahay. marka taasna waxay naga caawinaysaa inaa qalbigeena nadiifino, acmaasheena inaa qurxino, dhaqankeena inaa qurxino. marka intaasna markay qurux badanaadaan noloshaadana way qurxoonaanaysaa. marka insha allah tacaala waa isla socod wanaagsan insha allah la socda biidni illaahi tacaala. kheyr iyo caafimaad badan baa nii rajeeyay. subxaanaka allaahuma wabixamdika nashhadu an laa ilaaha ilaa ant nastaghfiruka wanatuubu ilayk.